haddaynan masraxa ku soo dhaweeyo saamiga bas si uu kelmadiisa inooga sheego halkan oo daaran hodan noqo hanti la'aan waa nin dhalinyaro ah wax qabsaday oo aad idinkuna markhaati ka tihidiin natiijooyinka u gaaray soo dhawla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمانتين صاحبيال سيجار وحنا السلام يا صفقة وهريو دتك يقوم مهمسن إذيكم مهم باتينا لكن قف كستوح وحصوص طاع دتك واو هير قبل كيام واو كيالو تديوجا كلمة في عن هذا مركا دتك وهريو السلام يا وعبد يوسف آر يو معلن كيا عبد الرحمن سيدو كلنا قدوميها والسلام يا waxaan salaamayaa oo kale macallin aar iyo sidoo kale dhammaantiin saaxiibaday iyo waxaa tihiin dadka haddii maanta meesha aan taaganahay isoo gaarsiiyey sababtoo ah haddaydaan macaamiil la ahayn saami online waxaan u malaynayaa halka ma taagnaadeen waxna maan ahaadeen in salaan kadib waxaan idinka codsanayaa inaynu faatixada u marno abwaan hadraawi oo maanta la aasay ilaaha u naxariisto subxaanahu wa tacaala qof inaga wada baxay buu ahaa waana ka wada murugaysannahay intaa kadib adduunkan sidiisuba wuxuu ku dhisan yahay dadaal iyo horumar han iyo hal abuur qofka leh markasta wuxuu gaari karaa waxa uu u baahan yahay isagoo keliyaata maaha qoyskiisa magaaladiisa xaafadiisa iyo waddankiisa buu gaarsiin karaa taa macnaheedu markaa waxa weeyaan haddii uu qofkaasi horumar gaadho keliyaata in la sheego maahee isagu isma sheegaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka inuu hal abuur yeesho uu han yeesho uu dadaalo si kastuu u dhaco mar kaste amaba uu kufo dadaalkiisaasi iyo horumarkiisaasi ma noqonaayo foosta gundaloosha mar unbuu ka midho dhalinayaa hadduu doonayo qofku yaanu gacan qabasho helin yaanu sidoo kale maalgelin helin laakiin horumarku qofku u baahan yahay haddii uu marnaba ku dadaalayo wuxuu helayaa meeshu doonayo inuu gaadho adduunkan sidiisuba waa maanta iyo berri shalay badanaa waxba ma tarto maanta inaan dadaalno oo waxa ugu horeeya aan wax ku gaari karayno berri toolo wanaaggeeda iyo farxaddeeda iyo reerheynteeduna waxay ku jiraysaa waxa weeyaan maanta dadaalka aynu ku jirno caadiyan anigu saami online baan aasaasay waxyaabo badan oo isla doonasho ilaahaya marka laga yimaado waxyaabaha ugu waaweyn ee gacantay qabtay waxa weeyaan kelmado ay yidhaahdeen dad ii dhowdhow markaasna aan wax ka filanayo sidaad wada ogtihiin dadkaas waxa ugu horeeya waa iyadii suraar xuseen xasan allah daayo cimrigeedana ha u dheereeyo iyo sidoo kaleba qoyskayga taas macnaheedu waxa weeyaan waxa ugu horeeya qof waxna dili kara sidoo kalena niyadda ka dili kara horumarkiisana hor istaagi kara waxa weeyaan kelmadaad tidhaahdeen iyo sidoo kaleba adigoo isdhigta oo yidhaahda maanta maaha hal abuurkaaga inaad soo bandhigtid walaalkaa haddii uu ku yidhaahdo warniyo hal abuur baan hayaa horumar baan rabnaa inaan gaadhno waa inaad tidhaahdi walaal hore u soco laakiin haddii aad tidhaahdo war waxaagani dalkaba kama shaqaynayaan sidiina la odhanayay dadka intooda badanna odhanayeen kollay niyaddu see u dhimanaysa waa naqaanaa dadkeenna waxaa lagu xantaa in badanaa dadka ugu soo xigaa ay niyadda ka dilaan wiil baadu iman saaxiibkaaya war saaxiib maxaan sameeyaa haddaana wax badan u dhaadhacsanin wax godhay waxan waad iswaalaysaaye waxa maadaa jooga magaaladeedii wax kala samee marka muhiimadda weyn waxa waaye inaan sameyno marka ugu horreysa nafteenna aynu dhiirigelinno marka labaad cidday noogu dhow amaba cidda ugu dhowaad isleedihiin ciddaas wax fiican bay ku socotaa aynu dhiirigelinno hal abuurku waa wax adiga ku sugaaya booskaagi baa bannaan mudane cabdi yuusuf boos buu ku jiraa macalin cabdiraxmaan boos buu ku jiraa guddoomiyuhu boos buu ku jiraa baraafo boos bay ku jirtaa idinku boosaskiinni waa bannaan yihiin weli waxaa laga yaabaa qof kastoo halkaa fadhiya maanta haddii la weydiiyo fikrad buu hayaa laakiin fikradda hal mid buu ula baqaaya wuxuu isleeyahay niyo fikraddan lacag uma haysid waa kow waa midda labaad ee dadkan weli uma diyaarsana haddii aanad adigu bilaabin la soco berri toole qof kuu dhow amaba sidoo kaleba magaalada kula joogaa bilaabaya marka muhiimaddu waxa weeyaan fikrad haddaynu hayno horta kow inaynu bilowno haba dheeraatay intay nagu qaadanayso laakiin muhiimaddu weyn waxa weeyaan
waxaa inaynu dhaqaajinno hal abuur dad buu waxu yahay badanaa dhallinyartu waxay ka cabataa inaan la gacan qabanin adduunka markay arkaan badanaa youtube-kay daawanayaan waxay arkayaan hal abuur la keenay facebook bay arkayaan calibaaba bay arkayaan oo leh waxaa la sameeyaa calibaaba markuu wax yar jiray 20 milyan baa lagu investment geliyey ama lagu maalgeliyey waxaa haddana la siiyey 90 milyan facebook baa la arkay waa la maalgeliyey halkan waxba la iskuma qabanayo taasi muhiim maaha haddii la arko waxaa weyna shaqaynayaan oo la arkay inay dadka wax u soo kordhinayaan waa midda ugu horreysa qof kasta isagaa ku jeclaanaya waxaan xusuustaa hal kelmad qof kasta wuxuu yidhaahdo kolley waqti dambaan si fiican marka dee la jeeb roonaado qof aad u soo muuqda la noqdaa si fiican loo sheegi buugaag laga qori laakiin cabdi yuusuf aar baa waagan iska dhulka ahaa aan jaranjarada hoose fadhiisan jiray buu soo booqday welibana waddadan ka soo leexiyey waxaan ku yidhi markaa cabdiyow kelmadi dheh wuxuu yidhi kelmaddan ku odhanayaa waxa weeyaan ammaanana yeelo ilaahay subxaana wa tacaalana isku xidh macali cabdiraxmaan markaan waddada ku arko badana waa mashquul ma istaago laakiin saamiyow dib ha soo egina hore u soco yidhaahdaa sidoo kale macalin aar isaguna baryahan wuu iga mashquulay laakiin usbuucyada labadii usbuuc mar buu soo booqan jiray xaalkaygu wareysan jiray muhiimadda weyn xaalkayga u wareysan jiray ma ahan inuu maal isiiyo intan u yeedho amaba markan la kulmo waxay idhaahdaa maxaa maanta aad ii odhanaysaa waxaasaan ku odhanayaa marka muhiimadda weyn waxa weeyaan dadkeena sare inaan ka helno dhiirigelin inta fahansan weeyaan badanaa dadku ma fahansana kor ama wixii ka qabanaya amaba sidoo kaleba kor markii yaata gaadha qofku markuu hoos ka bilaabo wixii dhadhan bay u leedahay ka soo jabay uu garanayaa ka soo kufay uu garanayaa ka meeshii la taaganna uu garanayaa marka muhiimadda weyn waxa weeyaan aan doonaynaa war saaxiibayaal qaabkaan ku horumari karnaa adigu qoys baad ku dhalatay maanta qoyskaagu way kula joogaan laakiin beritoole dibaddaad uga baxee waad guursanaysaa qoyskaagu way socon magacaaga iyo adigaa soo hadhaay marka maanta 9 jeed dhigta lagu qabto yaa la xusuusanayaa cid kale lama xusuusanayaa cabdi yuusuf aar baa la xusuusanayaa haasi haddii niyadda lagu qabto yaa la xusuusanayaa cabdiraxmaan macnaha muhiimadda u weyn waxa weeyaan qofku haddii uu maanta meel taagan yahay uu rabo inuu meel gaadho taas uu dadaalayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkiisaas meelnaba kuma tuuraayo wuxun baa kaaga soo noqonaya haddii markaasaad heshid cid gacanta ku qabatana kaba sii fiicanba hal midoo kalean odhanayaa dadkeenna wax haysta iyo sidoo kalena dadka maanta wax laga filanayo dhallinyaradu qof kastood tidhaahdid way ku imanayaan war saaxiib aniguba anoo la mid ah oo isla dhallinyaro ah oo waxyaabo badan iskaga mid ah warniyo saamiyow saaxiib gacaliye maxaan samaynaa fikraddaasaan haynaa marka tegtid meel waxaa lagu odhanayaa tidhaahid fikraddii maalgeliya waxaasaan hayaa waxaa lagu odhanayaa waxaagan wax shaqaynaya maaha amaba fikraddii waan la cabsanayaa cid iga maalgelisa ma hayo taas waxa keliyaata horta lagaga bixi karaa waa halkii hore inaad wixii bilowdi inay shaqaynayso in la arkaa waa waxa ugu muhiimsan dadkeennu caadiyan indhaha macallina waa itus oo itaabsiye haddii itusoo itaabsi ay meeshii timaado way socon adduunka shirkaduhu markay 2 sano 1 sano socdaan waxaa loo arkaa waxa weeyaan markaba dad baa jira ugaadhsada ganacsato ahaaya hal abuurayaal kale ahaaya dawladda ahaataya sababtoo ah qofkani hadduu magaca soo kordhiyo dalkii buu magacu soo kordhiyey dadkii buu magacu soo kordhiyey magaalada ku noolaa magac buu soo kordhiyey kadib maxaa la sameynayaa fikraddaas in inta saa loo eego fikradaha shaqaynaya oo dhan kadib halkaa laga ugaadhsado la maalgeliyo innaga laakiin xooggeenna iyo in dadaalkeenna maanta aynu wax ku dhisno aynu ku horumarino ayaa wax inoo taraya dawladdeennu waxyaabo badan waa ka qabyo waxyaabo badan baanay samayn karin ganacsatadeena laftarkooda waxyaabo badan inta badani aanay u soo indhafurneen marka saaxiibayaal muhiimadda weyn waxa weeyaan aniga
waxa halkan soo gaarsiiyay waxa weeyaan war wad socon kartaa soco war horumar gaad yaano ka fikiraya in beritoole ay maanta beriga fiicnaato taasoo ah inaan maanta aan sameeyno xarumo qof kasta oo leeyahay yaa idin la leh meesha yaa idin maalgeliyay markasta oo wax sameeynayna la oranayo yaa idin ka dambeeyo cidina gama dambayso macaamiisheeda iyo sidoo kaleba hal abuurkayga inad bogaadiseen oo noo sacabtumteen ayaa ka dambaysa runtii aad baan idinku mahad celinayaa saaxiibayaal waxaan aad noogu mahad celinayaa qofka markasta na yiraahdaa hore u soco waad guuleysanaysaan idinkana sidoo kale waxaan idin leeyahay saaxiibayaal hal abuurku waa muhiim boqolaal fikradood oo waxa jira bannaan laakiin maanta cid ku dhacda aanay jirin waxaan is yiraahdaa wallaahi waniyo yaa afar ka dhiga ugu yaraan waliya saddex ka dhiga sababtoo ah waxaan rabaa inaan shirkadaha kale aan leeyahay ama aan leenahay cid noola dadaasha anagu sideedoo kale saami online baad igu taqaanaan laakiin waxaa jirta shirkadan 2021 ana asaasay waa shirkadda intan garanayo Alibaba marka laga yimaado jumlad wax ku iibisa jumlad baad qaab online wax uga dalban kartaa magaceedu waa jumlad.com magaco kaliyaata ama domainka magaco kaliyaata $45,000 ayaa laygu baayaco saamiyo nasi magaco kaliyaata nasi saaxib may idima siinaaye wixii anu saami online ba wataaye tan aan wada yeelano kor aan u kacsano meeshii waxay taagan yihiin marka niyo hal abuurkaad yeelanaysaa may magacaana idima siinaayo muhiimadeedu waxa weeyaan inaan helo waxna fiican oo meel loo gaarayo marka muhiim in 3 qof aan 4 qof aan noqdo waan jeclaan lahaa sidoo kale waxaan ka sii jeclaan lahaa in dhalinyaradiina ganacsatadiina halka fadhida inay og yihiin ama sidoo kale ay qiimeyn karaan fikradda cusub ee maanta beritoole ee shaqeynaysa ee horumar gaaraysa in laga faa'iideysto waad ogtiin Amazon cidda ugu dhow qoys ahaan marka laga yimaado cidda maanta meel gaarsiisay waa dalkeeda iyo dadkeeda Alibaba waad garanaysaan halka maanta ay taagan tahay halka ay taagnayd SoftBank ninka maamula wuxuu taagan yahay Alibaba yimid Jack Ma ninka la yiraahdo wax business plan ah muusidanin wuu soo hor fadhiistay wuxuu iga codsaday inaan u maalgeliyo Alibaba wuxuu taagan yahay ninkaasi indhihiisaan ka arkay waxaan u wadaa inay wax soconaayeen sababtoo ah markaas 320 mise 330 shaqaalaha u lahaa afkana waa lagu hayay shirkadiisa marka muhiim tawgu muhiimse waxa weeyaan warnimay hoo saaxiib yeelan dadaalno laab la kacana iska diino laab la kaca waxa la yiraahdaa waa hal usbuuc laba usbuuc saddex usbuuc ugu yaraan haduu lacag haysto sanad buu gaaraa dhalinyaro wax fiican asaasaysa niyada ka dhimanaysa marka wax badan oo adag arkaan sidoo kalena dadkeena maalqabeennada waxaan ka codsanaynaa warniyo dhalinyarada yar soo kacaysa ee horumarka dalka ka qayb qaadanaysa sababtoo ah dhalinyartu waa horumarka dalkeena ee beritoole aan gacan qabanno horumar aan gaadhno sidoo kalena aan suuq geyn ka dhigay shirkadda jumlad.com waa shirkad cusub wax kasta oo u baahan tihiin oo jumlad inaad ku iibisaan ama aad ka iibsataan waad ku dhex iibin kartaan waana idin furan tahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin macallin maarigna mar kale salaamaya